xog buuxda waxaan kaga hayaa marwada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo duqa Muqdisho hordhigtay dalab ay ku doonayso in shakhsiyaad ay wadato xilal lagu magacaabo gobolka Banaadir inkastoo dalabkaas aysan aqbalin beelaha Habargidir iyo Abgaal oo awoodda ugu badan gobol kale warar hoose lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya oo aan ka helino ilo ku dhow gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada ayaa sheegaya in kulan gaar ah ay wada qaateen asaga iyo waliba marwada koowaad ee dalka Zainab ayaa la sheegaya in gudoomiye Cumar Finish ay hordhigtay dalab ay ku doonayso in beesheeda la siiyo laba gudoomiye degmo oo dheeraad ah dalabka maama Zainab ay ku doonayso in beesheeda mursade la siiyo gudoomiyaal degmo ayaa la sheegaya in kaashanayso mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Finish ayaa la sheegay in uu ugu jawaabay Zainab in xilligan uusan qorsheynin xilka qaadis iyo magacaabisba inuu sameeyo taa beddelkeedana uu sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya arintan uu kala tashan doono haddii ay suurtagal tahay xogtan helaya waxay sheegaysaa in Zainab Macalin ay doonayso in gudoomiyaasha degmooyinka beesheeda la siiyo ilaa 4 gudoomiye halka haatan ay ka leeyihiin 2 gudoomiye oo ay kala maamulaan degmooyinka Howlwadaag iyo Daynile lama oga sidoo ku aqbali doono gudoomiye Cumar Finish walow arintan aysan aqbali doonin beelaha Mudulood oo kuwa ugu awoodda badan gobolka Banaadir